kooxda ka dagaalamaysa gudaha magaalada Laascaanood ee huwanta ah ayaa soo bandhigtay dhaqan la mid ah kan kooxda Al-Shabaab. goob fagaare ah oo ku taala magaalada Laascaanood ayaa lagu soo bandhigay koox dabley ah oo ku shabaaxaysa sawirada madaxda Somaliland oo uu ka mid yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, gudoomiyaha xisbiga Uxud Injineer Faysal Cali Waraabe iyo taliyayaasha ciidanka Somaliland. dhaqankan ayaa ah mid inta badan lagu yaqaan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab oo ayadu inta badan muujisa nacaybka ay u qabaan madaxda sare ee Soomaalida, waana dhaqan u gaar ah kooxda Al-Shabaab. sidaad la socotaan, Somaliland dhowr jeer oo hore ayay sheegtay inay magaalada Laascaanood ka dagaalamayaan koox ka tirsan Al-Shabaab oo uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Cabdi Madoobe, waxaana caalamka iyo cid walba cadayn ugu filan dhaqanka Al-Shabaab ee maanta yaala magaalada Laascaanood, kaasi oo ugub ku ah deegaanada gobolka Sool. sidoo kale cid walba oo diidanayd fariintii Somaliland ee ahayd Al-Shabaab ayaan kula dagaalamaynaa Laascaanood waxaa markhaanti fur u ah dhaqanka ku cusub xarunta gobolka Sool ee Laascaanood, halkaas oo ay kooxda Cabdi Madoobe si cad ugu soo bandhigeen fikirkooda Al-Shabaabka ah ee lagu beerayo deegaanada gobolka Sool, halkaas oo ay Somaliland sheegtay inay ka sifaynayso kooxaha Al-Shabaab iyo huwanta kale ee isku urursaday gudaha magaalada Laascaanood. dhinaca kalena madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhawaan tababar u soo xiray 7,000 oo askari oo lagu xoojinayo ciidanka Somaliland ee jooga gobolka Sool, gaar ahaan taliska Gooja Cadde ee duleedka magaalada Laascaanood. ciidamadan cusub ee uu dhawaan madaxweyne Biixi tababarka u soo xiray loona raray furimaha dagaalka ee Laascaanood ayaa soo afjaraya rajadii ay qabeen istimada dhaqanka gobolka Sool oo ayagu raajicinayay inuu madaxweyne Biixi ciidankiisa kala bixi doono gobolka Sool oo uu nuglaan doono cadaadiska beesha caalamka iyo qaramada midoobay. sidoo kale marka la eego awoodda ciidan ee uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi dhawaan tababarka u soo xiray iyo ciidankii horey u joogay Gooja Cadde iyo Maraaga, waxaa aad u yar rajada ay ku sii joogi karaan Laascaanood ciidamada huwanta ah ee ka dagaalamaya Laascaanood. sidoo kale taliyaha ciidanka militariga Somaliland Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo dhawaan ka jawaabay hadallo ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan ciidanka Puntland iyo huwanta kale ee ku sugan magaalada Laascaanood. dhinaca kalena hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan sheegay inaysan gacmaha ka laaban doonin dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, isagoo ka hadlayay xarunta baarlamaanka Puntland. sida iska cad, Puntland horay ayay ugu jirtay dagaalka Laascaanood. hadalka Dani ayaana ah mid uu isaga yaraynayo culayska siyaasadeed ee ka haysta gudaha Puntland, isagoo nafis siyaasadeed ka raadinaya dagaalka Laascaanood. Dani ayaa dhowr jeer isku dayay inuu ka dabaasho xiisadda Laascaanood, laakiinse hadda dan siyaasadeed ayuu ka dhex arkay dagaalka magaalada Laascaanood. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan. fadlan daawade muuqaalkan like saar una sheer gare asxaabtaada.